Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada xarunta tababarada iyo cilmi baadhista ee Emra iyo tababarkeenii ahaa API-ga ama Expanded Program Organization oo uu bixin doono ama uu soo jeedin doono Mustafa Maxamed Muuse. Tababarkeenan API-ga ayaa waxaan diiradda ku saari doonaa tallaalada gaarka ah ee Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee WHO iyo UNICEF oo iskaashanaya ay u dejiyeen iyagoo ku saleynaya xanuunada endemiga ku ah deegaanada ay dadka Soomaaliyeed degan yihiin. Haddaba trainingkeenan Expanded Program Organization Training ayaa waxaanu raaci doonaa hagaha caalamiga ah ee ay labada hay'adood waa Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee WHO iyo UNICEF hagaha caalamiga ah ee labada hay'adood ee calaamadahooda aad arkaysaan ay u dejiyeen ayaanu raaci doonaa. Tababarkan Expanded Program Organization Training ayaa waxaynu ka arki doonaa oo ka faa'iidaystayaasha tababarkan ay awood iyo aqoon dheeraad ah u yeelan doonaa xilliga tababarkani dhammaado insha Allah bismillaahi kariim xanuunada tallaaladani ay ka hortagaan. Tallaalada loo yaqaano ama kooxda tallaalada ah ee loo yaqaano API xanuunada ay ka hortagaan. Sidoo kale waxaynu ku baran doonaa tallaalada magacyadooda. Waxaynu arki doonaa intaynu tababarkeenan ku jirno ama aynu aqoon dheeraad ah u yeelan doonaa schedule-ka ama jadwalka saxda ah ee tallaalada kala duwan lagu siiyo da'yarta da'ahooda kala duwan. Carruurta 5 sano ka yar iyo dumarka da'da dhaqmaatiga ku jira ayaa tallaaladan inta badan ay xoogga saaraan. Markaas sida saxda ah iyo jadwalka saxda ah ee tallaaladan lagu qaato ayaanu ku arki doonaa. Sidoo kale waxaynu ku arki doonaa tababarkeenan waxyaabaha loo yaqaano campaign tools like measles and OPV agabka la isticmaalo xilliyada ololaha lagu jiro. Dhawaanahan waxaa jiray campaign-yo aad arkayseen oo tallaalada qaar lagu qaaday iyadoo lagu xoojinayo tallaalada sida rootiinka uga socda meelaha lagu daryeelo hooyada iyo dhallaanka ama kuwa lagu cirib tirayo waxa loo yaqaano dabaysha. Haddaba toolska ama agabka la isticmaalayo ee kala duwan xilliyada ololaha tallaalada qaar lagu jiro. Trainingkeena waxaanu ku arki doonaa vaccine administration tallaalada sida loo bixiyo, goobaha laga bixiyo, siteska laga bixiyo, routiska tallaalada qofka laga siiyo, angleska tallaalada qofka laga siiyo. Waxaanu arki doonaa waxa loo yaqaano intaan tababarkeena ku jirno API-ga cold chain waxa loo yaqaano cold chain-ku waa maxay? Waa silsilad qaboojineedka tallaalada. Silsilad qaboojineedka tallaalada ayaa waxaa jirta recommended temperature wax la yiraahdo temperature lagu taliyay oo loogu taliyay in tallaalada ay ku ilaashamaan oo u dhaxeeya 2 ilaa 8 degree Celsius. Haddaba maxaa ku ilaalinaya? Sidee baa loogu ilaalinayaa? Agab noocee baa la isticmaalaya? Tababarkeenan waxaanu ku arki doonaa intaynu ku guda jirno injection safety. Tallaalada sidee ayay u noqon karaan tallaalkaagu mid safe ah? Safe adigu waa naftaada aad naftaada uga ilaalin kartaa irbadaha aad tallaalka ku bixisay si aanay kugu faafin xanuunada faafa aanay kaga soo gudbin qofka tallaalka siinaysa. Sidee buu tallaalka aad bixinayso qofka aad siinaysaa oo u noqon doonaa tallaal qofka anfacay oo wax dhibaato aan u geysan. Sidoo kale tababarkeena waxaanu ku arki doonaa waxa loo yaqaano safe disposal of wastage hanaanka loo basriyo khashinka ka soo haray tallaalada. Hadday tahay weelalka gaararka ah ee lagu guro dhammaan khashinka tallaalada ka soo haray iyo haddii ay tahay goobaha lagu basriyo ugu dambeyn marka la gubi doono. Waxaanu ku arki doonaa sida loo kormeero oo loo ogaado performance-ga tallaaladaas, qiimeynta saxda ah ee tallaaladaas sida loo ogaado iyadoo diiradda tallaal gaar ah lagu saarayo especially oo ay guideline-keenu sheegay ama guideline-ka caalamiga WHO UNICEF ay isku waafaqsan yihiin uu sheegayo in tallaalka beenta ama tallaalka 5 cudur ka hortaga la qiimeeyo especially carruurta da'da 1 sano ka yar. Haddaba Soomaaliya target disease and their vaccines xanuunada geyiga Soomaalida inta badan endemiga ku ah ee tallaaladooda la qaato maxaa ka mid ah? Waxaynu arki doonaa xanuunka magaciisii iyo tallaalka magaciisii oo la socdo. Ugu horreyn xanuunka qaaxadu
waa xanuun ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay ku nooshahay ku dhici kara kuna dhaca waxaa laga hortagaa oo loo qaataa talaalka loo yaqaano BCG waxa xiga talaalka jadeecada waxa xiga baa cudurka jadeecada waa cudur ummadda Soomaaliyeed ku badan especially intay dadku carruurta yihiin waxaa laga hortagaa talaalka loo yaqaano measles vaccine waxaa jira talaalka loo yaqaano cudurka loo yaqaano poliomyelitis dabaysha waxaa laga hortagaa oral polio virus ama waxa loo yaqaano OPV talaalka dhibcaha ee afka laga qaato waxaa jira talaalka shanta cudur ama pentavalent vaccine penta waa 5 shanta cudur ayaa kala ah diphtheria oo loo yaqaano qowracato whooping cough xiiq dheer hepatitis B beer xanuun tetanus iyo hemophilus influenza TB oo keena laba xanuun oo labada xanuun carruurta ay khatar ku yihiin xanuun waxa loo yaqaanaa meningitis qoorgooye xanuunna waxa loo yaqaanaa pneumonia haddaba waxa contentska trainingkeena ka mid ahaan doonaa immunization age da'da la talaalo jadwalka lagu talaalo iyo limitiska ay kaga dhamaato da ahaan carruurta talaal dosiska talaalada magacyadooda ayaan xagan ku arkaynaa xaggana waxaanu ku arkaynaa da'dii carruurta yaryar xaggana waxaanu ku arkaynaa talaalada talaaleedkii da'dii iyo talaalkii oo socda tusaale ahaan talaalka OPV-ga ee loo qaato dabaysha waxa OPV 0 talaalka loo yaqaano ee loo ictibaariyo OPV 0 la qaataa ilmuhu markuu dhasho ilaa 15 casho ka yar yahay haddii ilmuhu 15 casho dhaafo macnaheedu waxa weeye OPV 0 talaalka la hadal ilmahaasi ma qaadanayo OPV 0 na maaha talaal ay kala qorantay wax loo yaqaano OPV 0 waa OPV-ga oo marka da'da ilmuhu ka yar yahay marka qofka la siiyo loo yaqaano OPV 0 talaalka BCG-ga qofka waxa la siiyaa maalinta uu dhasho ayaa la siin karaa ilaa iyo 12 bilood inta uu ka yar yahay waxa laakiin mubaax ah oo aad u sii wanaagsan in la siiyo ilmuhu markuu 43 casho gaadho ama markay hooyadu 40 baxdo ilaa inta uu ka yar yahay halka sano waxaana la qaataa hal mar talaalka benta ama talaalka shanta cudur laga qaato waxaa la qaataa 3 jeer marka koobaad talaalka waxaa la bilaabaa ilmuhu markuu jiro bil iyo badh bil kadib waxaa la siiyaa irbadiisa labaad bil kadibna waxaa la siiyaa irbadiisa saddexaad haddaba talaalkan haddii ilmuhu jaanis u heli waayo inta uu da'da saxda ah ku jiro waxaa loo wadi karaa talaalka ilmuhu inta uu ka yar yahay 2 sano waxaa jira talaalka loo yaqaano OPV 123 OPV 123 waxaa lala bilowdaa benta 123 benta 1 xilliga la qaato waxaa qaadanayaa oo kale ilmaha la siinayo OPV 1 benta 2 waxaa la siinayaa OPV 2 ayaa la siinayaa benta 3 na waxaa la siinayaa OPV 3 haddaba ilmuhu haddii uu intaas nasiib u yeelan waayo ama deegaana talaaladan yaalaan ilmuhu aanu kuba dhalanin ilmaha talaalka waxaa la siin karaa OPV-ga tan iyo inta uu ka yar yahay 5 sano ama 59 bilood talaalka jadeecada ama cudurka jadeecada talaalka laga hortago waxaa loo yaqaanaa measles vaccine talaalkan ayaa waxaa la bilowdaa sida caadiga ah ama routine immunization markuu yahay ilmuhu markuu 9 bilood jiro waxaa la siin karaa haddii ilmuhu jaanis uu yeelan waayo isagoo complementary isagoo kaawe ah oo difaaciisa kaabaya tan iyo intuu ka yar yahay ilmuhu 5 sano haddaba marka campaignada lagu jiro ama marka ololaha lagu jiro talaalka jadeecada waxaa la bilaabi karaa ilmuhu markuu jiro 6 bilood administration of vaccine ama vaccine administration sawirkan ayaa inoo soo koobay sawirkan wax kale inoo sheegaya waxa inoo sheegaya goobaha kala duwan ee talaalada kala duwan laga qaato talaalada kala duwan waxa laga qaataa 4 goobood OPV afka laga qaataa jadeecada waxa laga qaataa gacanta midig qaybteeda sare bentada ama talaalka shanta cudur waxa laga qaataa bowdada qaybteeda gudaha maahan qaybteeda dibadda xigta talaalka qaaxadana waxa laga qaataa gacanta bidix qaybtiisa sare waxa aynu ka hadalay oo kale waxa loo yaqaan waxa jira campaign tools ololayaashu waxay leeyihiin agab gaar ah oo la isticmaalo haddaba tusaale ahaan kamiislasta ayaanu soo qaadanaynaa kamiislasta waxaa loo yaqaanaa cold chain ama talaagada weyn ee aan lahayn meel dabka loo geliyo qabowga kaydisa muddada 7 casho ah waxaa loo yaqaanaa cold box taasna waxa kale loo yaqaanaa mother of campaign tools hooyada agabka talaalka haddaba agabka talaalka maxaa ka mid noqon kara waxaa ka mid noqon kara vaccine talaaladii sida talaalkii jadeecada iyo talaalkii dabaysha waxaa kaloo ka mid noqon kara biyayaashii especially biyaha lagu qaso
talaalka jadeecada oo biyo gaara oo wato ah. waxaa ka mid noqon kara vaccine carrier. vaccine carrier-ku waa qabowhaye lagu soo dhaweysto talaalka maalinta ama saacadaha la bixinayo. waxaa ka mid noqon kara vitamin A oo isaguna ku lamaan mar kasta oo la bixiyo talaalka jadeecada ama ay campaign tahay ilmaha la siiyo. Short shoot-ku wax kale ma aha waa shiriishka ama waa shiriishyada lagu siiyo ama lagu bixiyo talaalka jadeecada. syringe 5 ml ah waa talaalka ayaa lagu qasaa shiriishka. waa lagu qasaa ama waa shiriish lagu qaso biyaha iyo vaccine-ka measles-ta marka la isku qasayo waa shiriishka la isticmaalo. kani isaguna waxa weeye waxa loo yaqaano maqas oo waxa afka laga jira vitamin A. cotton wool-ka isagu waa codbi. sharp container-ku waa maxay? waa khashinka halka lagu basriyo, waa khashin qubka ama safety box-ka weelka irbadaha iyo quraaradaha talaal ka dhamaadeen lagu ridayo. pen qalinka lagu calaamadiyo qof kasta oo talaalka siiyay. intaas waxay isku noqonaysaa waxa loo yaqaano campaign tools, agabka xilliyada campaign-ka. waxaa jira waxa loo yaqaano cold chain ama cold chain equipment, silsilad qaboojineedka toolka la isticmaalo. maxaa qabow ilaalinaya? waxa qabowga ilaalinaya waxaanu isla ognahay inay talaalada lagu sameeyo warshad. haddaba marka warshada lagu sameeyo talaaladu waxay leeyihiin awood waxqabad oo loo yaqaano potency. awoodda waxqabadina waa ay meesha waa ay ka baxdaa haddii temperature recommended temperature ah oo lagu taliyay in lagu ilaaliyo oo u dhaxeeya 2 ilaa iyo 8 degrees Celsius haddii lagu ilaalin waayo. haddaba talaalada waxa lagu sameeyaa dadweynaha waxaan aragtaan iyadoo inaga la inoo keeno. waxa lagu soo xamaalaa ama lagu soo qaadaa cold shipment, qaboojiye markab soo fuulay oo qabowgiisii leh, ama cold cargo system baa lagu keenayo. diyaarad baa keenta. diyaaraddu markay soo qaadana qabowgii loogu talagalay recommended temperature-ka ahayd ayaa ku ilaalisa. marka taa la keeno gobolada la keeno talaalada waxa lagu ilaaliyaa refrigerators, talaajado leh meel dabka loo geliyo si qabowgu u sii ahaado intii loogu talagalay. marka deegaanada miyiga loo qaadanayo talaalada waxa lagu sii qaataa waxa loo yaqaano cold box. cold box wax kale ma aha waa qabowhaye waxaanu qabowga hayaa muddo 7 casho ah. waxaa jira vaccine carrier. vaccine carrier-ku wax kale ma aha talaalka ayaa lagu soo dhaweystaa si la isuga ilaaliyo in la iska furfuro oo marba qof loogu furo waxa loo yaqaano cold box-ka oo dabadeedna cold box-ka aan u kulaanin talaalka maalinta la bixiyay lagu soo dhaweystay. halkani wax kale ma aha waa deegaankii iyo dadkii talaalka la siinayay. haddaba silsilad qaboojineedku waa laga soo bilaabo warshadii talaalka samaysay ilaa iyo halka lagu isticmaalayo inta u dhaxaysa in talaalka recommended temperature oo u dhaxaysa 2 up to 8 degrees Celsius lagu ilaaliyo. halkaasna waxa weeye cold chain, silsilad qaboojineedka iyo equipment toolkii qaboojinayay ee lagu ilaalinayay qabowga ku ilaalinayay. waxaa jira injection safety and safe disposal of wastage. waa maxay injection safety? injection safety baa ah saddexdan qodob. safe injection is the injection step. waa injectionka safe-ka ahi waa injectionska haysta maxay? doesn't cause harm to the recipient. waa kuwa aan dhibaato u geysan qofka qaatay. tusaale ahaan sidee baan dhibaato u geysanaynin? waa kuwa qofka halkii loogu talagalay laga siiyey, daadii loogu talagalay lagu siiyey, xilligii loogu talagalay lagu siiyey, iyagoo talaal dhowrsan oo qabowgii loogu talagalay ku dhowrsan la siiyey. does not expose to the vaccinator to any. waa kuwa aan dhibaato u geysan qofka vaccinator-ka. sidee baan ugu geysanayn? waa talaalada irbadihii uu qofku ku bixiyay uu iska ilaaliyay si aan dhibaato u geysan. doesn't lead to the presence of wastes that harm immunity. waa kuwa ka ilaaliyay ama aan dhibaato deegaan keenin. tusaale ahaan irbadihii iyo quraaradihii talaaladan lagu bixinayay waa dhibaatada deegaanka kuwa laga ilaaliyay ee lagaga dhowray maxay? walxihii khashin gurka ahaa ee la sitay. safe disposal baa ah maxay? safe disposal-ku wax kale ma aha waa hanaanka looga basrinayo deegaanka dhibaatada ama khashinka ay leeyihiin agabka talaaladu. waxaa la qaataa oo la isticmaala waxa loo yaqaan sharp container ama safety box. safety box-ka ayaa number leh, numberkaasoo number 1 la isku xidho oo la isgelgeliyo kadib afkaasuu yeeshaa. haddaba qofku waxa uu ku gurayaa dhammaan quraaradihii talaalka iyo irbadihii uu talaalka qofka ku siiyey isagoo aan furka dib u gelin ayuu halkan ku guraya.
marka 3 meelood 4 meelood 3 meelood ay buuxsanto ayaa uu afka ka xiraya iyadoo ka cararaya qofku intay buuxsatay tusaale farta saa ku shaqeynaya irbadihi mudaan dabadeedna waxa lagu gubayaa goobta loo yaqaano incinerator wax kale ma aha waa meelaha loogu talagalay in lagu gubo irbadihi iyo khashinka ka soo haray talaalada taasina waa maxay waa hanaanka loo basriyo loogala basriyo khashinka deegaanka talaalada monitoring of pentavalent si hadaba loola socdo oo loo monitor gareeyo pentavalent performance talaalada bentada dadku ma dhamaystaan kii bilowday ma dhamaystaa waxa la eegaan karaa oo la eegaa waxa loo yaqaan vaccine coverage talaalkan deegaanka loogu talagalay dadkii joogay talaalku ma wada gaaray iyadoo la xisaabinayo tirada dadka ah ee targetka kugu jirtay ee talaalka qaatay oo loo qeybiyay tiradii guud ee targetkaagu ahaa oo lagu dhuftay 100% haddii percentage ku soo baxa uu 80 ka hooseeyo coveragekaagu waa poor coverage waxa la waa poor coverage qofkaasi muu gaarin targetkii loogu talagalay talaalka lahaa waxa jira wax loo yaqaan drop out rate wax kale ma aha waxa weeye talaalka dhowrka jeer la qaato sida bentada ayaa waxa la eegayaa under 1 year caruurta imisa caruura ayaa dhowskii koobaad ama talaalkii koobaad ee benta 1 qaatay oo aan gaarin benta 3 dabadeedna waxa la kala jaraa tirada caruurta ah ee benta 1 qaadatay ayaa waxa laga jarayaa tirada caruurta ah ee benta 3 gaadhay ama benta 3 dhamaysatay dabadeedna waxa loo qaybinayaa tirada caruurta ah ee benta 1 bilaabatay 100% baa lagu dhufanaya haddii tiradaas haddii drop out rate-kaagu uu ka bato 10% drop out rate-kaagu waa uu badan yahay saas aawadeed macnaheedu waxa weeye tiro badan oo caruura oo talaalka bilaabatay ayaan dhamaysan oo ka luntay halkaana waxa kaaga imanaysa haddaad shaqaale tahay canaantaadii aad xaq u yeelanaysa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh